dowladaha Soomaaliya iyo Turkmenistan ayaa si rasmi ah u yeeshay xiriir diblomaasiyadeed waxaana safaaradda Turkmenistan ee magaalada Ankara ee dalka Turkiga munaasabad lagu qabtay oo heshiiska lagu kala saxeexay ka qayb galay mas'uuliyiin ka socday labada dal. heshiiskan oo ay soo diyaariyeen wasaaradaha arrimaha dibadda ee dalalka Soomaaliya iyo Turkmenistan ayaa waxaa labada dal u kala saxiixay safiirka Soomaaliya ee dalka Turkiga Mudane Jaamac Cabdullaahi Caydiid iyo safiirka Turkmenistan ee dalka Turkiga Mudane Ishankuli Amanliyev. Danjire Jaamac Cabdullaahi Caydiid ayaa sheegay inuu heshiiskan yahay mid taariikhi ah isla markaana labada dal ay ka faa'iideysan doonaan wuxuuna xusay inay ku howlan yihiin heshiisyo cusub oo ay la sameystaan dalalka kale ee dariska la ah dalka Turkiga. maanta ay taariikh tahay 4 bisha November 2019 waxaa farxad noo ah inaanu heshiis taariikhi ah la saxeexnay dawladda Turkmenistan. heshiiskaas oo qeexaya in labada wadan ay yeeshaan xiriir diblomaasiyadeed waa laba wadan oo awalba walaalaha oo munadamada tacaawun islaami ama OIC ka mid aha laakiin aan lahayn xiriir toos ah oo safaarada iyo xiriir diblomaasi ah. maanta ay bilaamatay oo labada aniga iyo safiirka Turkmenistan u fadhiya Ankara aan ku kala saxeexnay Ankara heshiiska taariikhiga ah oo labada wasaaradood ee wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Soomaaliya iyo wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Turkmenistan heshiis ay soo wada diyaariyeen baanu Ankara ku saxeexnay. heshiiskaas wuxuu albaabada u furayaa in labada wadan ay safaarado furan karaan mid waliba wadanka kale ka furan karo. heshiiskaas aad iyo aad ba labada dhinacba uu muhiim ugu yahay waliba Soomaaliya oo wadan kada soo kabanaya oo dagaal sokeeye ka soo kabanaya oo hadda cagaha isku taagay oo bilaabay inuu adduunka xidhiidh la yeesho. muhiim bay u tahay heshiiskani maanta uu yahay runtii dalka Soomaaliya ka kaliyana kuma eka waxaan ka shaqeynaynaa sidii aanu heshiiska la mid ah oo la samaysan lahayn wadamada dariska la ah dalka Turkiga sida Kazakhstan, Azerbaijan, Uzbekistan, Kyrgyzstan iyo kuwa la midka ah inaanu la samaysan heshiis kaas oo kala ah oo Soomaaliya ay la yeelato xiriir wanaagsan oo ka Turkiga ay la leedahay oo kale inay la yeelato wadamadaas ayaanu anagu bariyahan oo dhan ka shaqeynay. Soomaaliya oo ka soo kabanaysa dhibaatooyinkii burburka ayaa muddooyinkii dambe soo celinaysay xiriirkii diblomaasiyadeed ee caalamka iyo doorkii wanaagsanaa ee ay ku lahayd gobolka. Axmed Cabdiqaadir Ismaaciil Axmed Darwish magaalada Ankara.